إلهي waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan sheegayo runta inaan sheegayo runta oo dhan aan sheegayo wax kalena aan sheegin run maahane intaas kadib su'aalaha tooska waxa ku weydiin doona qareennada ku difaacaya kadibna su'aalaha cross examination ama su'aalaha gudban waxa ku weydiin doona xafiiska xalaaliyaha guud maxkamaddu xilli kasta su'aalo ku weydiin kartaa abukaat wanaagsan Siid Cali maalin la mid ah abukaat waxaad maxkamadda la wadaagtaa dhacdada aad u taagan tahay xilliga ay dhacday maalinta taariikhda iyo sanadka waxay dhacday maalin Jimcaha habeen Sabti soo galayo taariikh 26 sanadka 2024 jimcadaasi maalintii jimcada ah wixii dhacay cid aan adiga ahayn oo sheegi karta ma laha maalinta jimcaha adoo furaya maalinnimadeedii maxay ahayd maalintaas abukaat sida maalintaas ay ku bilaabatay sida wax u dhacay ma ka warrama maalin ahaan subaxii ha marka hurdada ka kacday maxaa sameysay oo talaabooyin ah subaxii hurdadaan ka soo kacay maalintaas hurdadaan ku daahay walaalkay maalintaas South Africa imaanayay aniga maadaama elaboorkan ka shaqeeyo elaboorkan soo aaday elaboorka waxaan imaaday 4 saac iyo bar abaarahaas walaalkay ayaan soo waday maalintii oo dhan waan wareejinayay oo ehladaan ku wareejinayay isku aabo isku hooyo baan ahayn marka ehladii asaga aabiis dhankiisaan soo wareejinayay 2 saac iyo bar maray ku aadantahay habeenimo ayaan guriga aabay imaaday waxaan u keenay walaalkay soo degay aabay maadaama uu hurdayay aabbo uu hurdayaan soo wadaan yiri marka insha Allah bariya ku keenaa waa soo baxnay abukaate ex control marayno walaalkay simkaar Soomaaliya ma haysan wuxuu yiri kiya raba cabitaanada la isku shiiday maqaayad meesha ku taalan uga gaday marka xaaskii inuu u gadaa uu yiri aniga waxaan dhaaf marka waa sii qaadanaa 4 xabba meesha ka qaatay walaalkii gurigiisa geeyay 3 saac iyo rubi meelahaas ay ahayd marka walaalkii gurigiisa geenayay gudoomiye walaalkii gurigiisa ka tagay wadadii xoosh qaaday oo ex control mareysay xaafadeeda xaqii iga dhaweyd xaafadeeda adiga waxaan tagay 3 saac iyo bar gurigeyga ayaan galay afakaada cabitaankii okay guriga markaad galaysay guriga ma adaa galay mase waa laga furay xaaskayga iga furtay abukaat guriga ma adaa galay mase waa laga furay macnay maxaa su'aal miya bimaana waxaan u macnaynaa waxa waaye abukaat maxkamadda iyadoo ku ixtiraamayso abukaat ataa waxaan rabnaa bixinta qaanuuneedna inaad isticmaasho su'aalaha macquuliyada iyo maangal kale ee dadku fahmi karaan inaad weydiiso intaas maxkamaddu ku faray waana ma sita hore u gal guriga markii aad gashay yaa la kulantay yaa joogay maxaad ku aragtay guriga awalan markaan galay xaaskayga irid iga furtay xogaana way xanaaqsaneed cabitaankii siiyay way tuurtay cabitaankii waan barbariyay intii karaankeyga way iga diiday ayadoo qeylinaysa qolkii aan galay waa jiiftay maadaama maanta dhan wareegay walaalkii wareejinay waa daalanay anoo jiifay hurdada iga naxisay dhowr shay igu soo toortay waxay igu tiri hooyadii xaraan igu dhashay adoo ifurun caaw ma jiifaneed aniga intii karaankeyga waa bariyay gudoomiye way iga diiday waxay tiri adiga nin ma noqonaysid ilmaheygana aabbo ma u noqonaysid waa in ay furtaa ana waxaan yiri wax walba waa ku sameeyay gurigaana ku soo dajiyay waxa u baahantay inta badan waa ku siiya waa ku caawiyaa maxaa qalad oo ka sameeyay waxay tiri ma ku qanacsani nin oday ah haystaa bishii $600 siinayo ilmaheyga aabbo u noqonayo adiga ifur ilaa intii karaankeyga waa bariyay gudoomiye waxay igu anina waxaan yiri alaab aniga keensaday gurigaan aan keenay aqali jiif kamid ah nin ma iiga dambeynayaan aniga ayada waxay tiri ninkan odayaan keensana asaana ku aroosa bishii inta siinayo intii aan isku qabsanay waxay tiri inta qaada lahayd gubay tiri darabtid
أنا waxaan dhaa markii intuu nin iga dambeelay inaan guba ii dhantaan iri alaabtaan waa baxay gudoomiye laamigaan aaday shidaal soo gatay qol yar oo nasiina meesha lagu yaalo dadka martida gabadha xaaskeyga shaqaalaha elboorka uu kamid ah uu imaa jiray qolkaas la seexi jiray marka qolkii ka soo bilaabay waa gubay ayadoo qolka jiifka ku jirtaan ugu tagay waxaan dhahay luulay qolkaan alaabtaada ka qaado intaan ku leeyahay gubaan dhaxaniga intaas markii hadalkeena maraayo way iga soo tagtay anina qolkii aan ku sii jiray taleefankayga wixii muhiim ah ka qaadaan isdhaayay hal daqiiqo ka yarba intaan wax qaadan baqayladeedaan maqal gudoomiye waa ku soo orday qolkii gubanaya iyadoo ku dhex jirtaan u imaaday waa badbaadiyay intii karaankayga banaankan keenay dabkiyaan ka damiyay iridda horaan keenay ilmihii guriga ku laabtay ilmihii aan soo bixiyay banaanka horaan keenay kadib iriddan furay dadkii dariska wada imaaday meesha aniga niyadeedu waxa ku jirta gaariga inaan soo qaato xaaskayga qaado isbitaal geeyo maadaama gabadha qaraabadeeda ay gudoomiye meesha ku badnaay aniga waxaa maqlay hal la dilo wax saasa maqlay aniga nafteeda la carar gudoomiye gaariga qaatay waa baxay xaaskayga gudoomiye aniga ma gubin waana jeclahay qof walbaana og maanta labadeena elboorkan ka wada shaqeynay qof walbana yaqaana xumaan muusa aqoon intii karaankayga waa caawi jiray gabadhaas xaaskayga weligeena gacan uma qaadin weligeena hadal xun ma dhihin isqa qabsigaan muddada asbuuca socda mooyee wax dheeraada ma jirin waxaa laga dhawaajiyay adigana hadda aad ka dhawaajisay shiidaalka inuu shay ku jiray shayga shiidaalka uu ku jiray maxkamadda la wadaag sidoo ahaa iyo cabirkiisa maxkamadda waa la wadaagayaa gurigeyga waa ka soo baxay wax caaga ma wadan markaan gurigeyga ka soo baxay dukaanka tagay dariskeena ninka dukaanka waa la soo weydiin karaa caaga caafiga oo halka liitar nus doolarka la kadaa ka qaatay weliba biyaha ku jiray biyihii aan ka daadiyey kaalinta shidaalka tagay shidaal uga soo shubtay gudoomiye wax caag shan la ma wadan hal la soo weydiiyo ninkii dukaanka ka gataa jooga waxaa la tilmaamay in xilligii aad bixaysay garaashka ay dad joogeen gaarigaada aad ka qaadanaysay yaa joogay garaashka markaan galayay qofna ma joogin aniga waxaan bixi jiray morning hore adiga 12 iyo 44 aniga xaaskayga mar walba bixi jirnay gaarigeyga baabuurta waa lagu soo kaysi jiray iridda ala dhigi jiray marka guduhuna ku jiraa laakiin si markaan baxayo salaada subax laga baxo aysan baabuur kale noo xirin oo aan meesha ugu daahin wax dadaana ma joogin meeshaas gudoomiye xaafadda imisaad deganeed xaafaddaas xaafadan 2 bil ku dhawaada deganay 2 bil aan deganay bisha hadda u dambeeyay tii dhamaanaydii ahayd waxaad arkaysay marqaatiyaal fara badan oo maxkamadda la hor keenay maragaasi waxaad ka taqaanid hadday jiraan maxkamadda la wadaag maragaas ka dhaaf asiga su'aal ku saabsan dhacdada inuu ka warbixiyo weydii kadib markaas qiimeynta maxkamadda leh kadib markaad garaashka ka soo baxday ee aad sheegtay in aad maqashay hal la dilo ee aad carartay xaggee aadi gaarigeyga baa watay wadadaas ku cararay gacmihii ani labada gacmood sanka labada dhagood waa ka gubtay labada gacmood wax kuma qaban karin gaarigii waa waday cabaar markaa wadi waay gaarigii waa ka degay bajaaja raacay waa qaaday suuqa xoolaha geeday waxaan dhahay marka lacag ma haysto walaalow marka xaafadda suuqa xoolaha meesha laamiga looga degayo guri walaashii dhagaxa ku xiran wax ma haysto nin walaalka uu gubanaan dhahay sidii aan uga tagay marka cid kale guriga markaad ka soo saaraysay xaaskaada cid kale oo waxyeelo ay soo gaartay oo ku muuqday ma jiray ma jirin ilmahaas ugu sokay ilmihiina anaa soo xambaaray gudoomiye qolka daa ugu galay ayaga dhan soo wada xambaaray waxaa ka muuqdo dab labada gacanood sankaba marka sida uu kugu soo gaaray dabkan maxkamadda la wadaag adoo faahfaahinayo sida uu ugu soo gaaray anoo qolkii jiifka ku jiro oo aan rabo inaan gubo qayladeeda xaaskayga maqlay oo ku soo orday qolkii soo galay qolkii ayadoo ku dhaxrafanayda uu imaaday gacmihii ka qabtay dabkii waa ka damiyay kulli qof miirba ma lahaynba markaas dabkii aan ka damiyay
maxay ahayd si fiican aan uga damiyey bannaanka hore aan u soo bixiyey dabka inta aan ka badbaadinayo unbay igu gaaray mooye dab aan xaaskayga ku gubaay ma ahayn umana quurin waayo cunugii caloosha iigu hayday ooray ii lahayd anaaba rabay owlaadii ii dhashay inaan arko xumaan intaas la eg ay igu sameeyday aan u gubana weligii ma arkinba xilliga ay waxaas dhacayaan carruurtu ma soo jeedeen ma soo jeedeen carruurta way jiifeen waxaan rabaa inaad u tilmaamtid keliya bannaankaa la sheegaa bannaanka luul allaha u naxariistay iyo carruurtaba bannaanku ma guriga dhexdiisa bannaanka mase ganjeelka bannaanka deriska oo waddada ku aadan xaaskayga horta marka hore bannaan keenay ilmihiina waa soo bixiyey kadib anaa ganjeelka furay bannaanka usoo wada baxnay marka annaga waa naga dhammaatay su-aalaheena tooska